idris waxaan jecelahay inaan dhowr su'aalood kaa weydiiyo shirka iyo xaaladda waqooyiga Soomaaliya iyadoo ururkiinu ka mid yahay ururada waqooyiga Soomaaliya bal waxaad nooga warantaa horta sidee buu idinku muuqdaa shirkani maxamedow waxa weeye shir muhiima waxa weeye oo la oran karaa shirkii ugu dambeeyay ama fursadii ugu dambeysay ee dadka Soomaaliyeed ay heli karaan ay wixii ka dhaxeeya ee dhibaato ama wixii daana ay soo kala gaadhay ay ku dhameyn karaan oo markaasi ay ku bilaabi karaan baal cusub oo taariikhda Soomaalida markaa hor u noqda waxa weeye shir la doonayo in lagu soo gabagabeeyo wixii dhibaatooyin ee dhaxmaray qabaa'ilka Soomaalida ama kooxaha Soomaalida oo markaa la iloobo wixii dhacay si loo bilaabo wada cusub iyo ummad cusub oo dib isugu timaada maanta waxaynu ognahay ummadda Soomaalidu ma jirto magac ahaan way jirtaa waxa Soomaali laakiin qaran ahaan ma jirto dal ahaan ma jiro dawlad ahaan ma jiro waa la kala baabay waxa dhacay in ummadii maanta ay u baahan tahay oo ay naga sugayso in dadkaasi Soomaalida ah loo taliyo oo loo qorsheeyo sidii ay mar dambe noloshoodii iyo dadnimadoodii u soo ceshan lahaayeen idris ururkiina SDA waxa uu ka tirsan yahay ururada waqooyiga Soomaaliya sideebo haddaba ururkiina u arkaa xaaladda waqooyiga Soomaaliya iyo wax ka qabashadeeda ururka SDA wuxuu ka mid yahay ururada Soomaaliyeed ee maanta ama xagga siyaasadda kala soo halgamay ama xagga hubkaba kala soo halgamay kaliitaliskii hore ee xukuumadii Maxamed Siyaad Barre marka qaybaha aan gaar ahaan ururka SDA wuxuu masalaa dadka degan waqooyiga qaybo kamida wuxuu ka mid yahay ururada masalaa dadka waqooyiga degan laakiin ururkaygu wuxuu rumaysan yahay Soomaaliya inay tahay mid kaliya Soomaaliya ma aha gobol waqooyi gobol koonfureed gobol bari ama gobol dhexe waana maanta u doqoniimo ninka taariikhda Soomaalida wax ka yaqaana oo sidii ummadda Soomaalida loo kala qaybiyay yaqaana boqolkii sano ay soo dhaafay oo maanta ku taama inuu isagu galo halkii gumaysigu uu ku jiray oo uu damco inuu kala qoqobo dadkaasi Soomaaliyeed ee isku degmada ah isku dadka isku diinta ah isku walaalaha ah marka anagu waxaanu qabnaa ma dhici karto koox ha noqoto koonfureed ama ha noqoto waqooyi meel ha noqoto oo iyagu isbida inay marku taagleen dadka kale ee dhulka la degan inay ku dirqiyaan waxa ay doonayaan kolka idinku nidaamkeed ku tala gashan waxa doonaysiin degmo waliba in ay nidaam gaar ah yeelato taariikhda dalkeenu soo maray maxamedow waxa maanta jirta isku duubnaantii inay baabaaday midnimadii inay baabaaday dadkii inay kala shakisan yihiin marka nidaam dimuqraadi ayuu baa dadka kala saari kara Soomaalidu waa qabaa'ilkuna waad garanaysaa waxa weeyaan heer siyaasadeed ama heer dhaqan oo aad u dambeeya marka dadku inta wacigoodu uu sidaas yahay waxa loo baahan yahay in dadkaasi kalsooni la siiyo reer walba ama gobol walba waxa loo baahan yahay dadkoodu inay ka taliyaan aayahooda iyo xukunkooda iyaga oo ku jira xaydaanka ama xerada Soomaali weyn macna waxa weeye Soomaaliya waa in laga aasaasaa dawlad dhexe dawladdaasi dhexena waa inay ogolaataa gobol waliba inuu noqdo gobol madax bannaan oo xukuumadda hoose haday noqoto xagga cashuuraha haday noqoto xagga waxbarashada xagga baac mushtariga in dadka gobolkaasi degani ay markaasi noqdaan dadka gacantooda ku haysta mana ogolaanayno dad kale oo ka yimid gobol kale sidii xukuumaddii Siyaad Barre inay dadka cashuura ka ururiyaan inay yiraahaan annaga halka ka talina inay yiraahaan annaga halka ku dhaqan oo joogi karna ma dhici karto taasi ogolaan mayno ummadda Soomaaliduna ogolaan mayso shirkanina markaasi wuxuu cadeeyay inaanay jirin dad Soomaalida kamid ah oo iyagu meel dhigta tala gooniya ama xukun gooniya marka shirka maanta socda waxa soo dhanaa waa gorfeyn doona taasina waxay dhacaysaa wada tashi gobolka waqooyi dadka ku nool iyagoo ka tashan marka hore dadkii masalay iyagoo aan ka wada hadlin oo aan ka tashan kaba hadli karo arrimaha Soomaaliya guud ahaan inaynu mid u wada noqono haddii SNM ay doonayaan in wada tashi yimaado waxba kama qabnaa anagu waan wada hadli karaa waa laga arrinsan karaa in umuuraha gobolkaasi dadkeenu ay degan yihiin dabeetana waxaynu ka hadli karaa wixii markaa bal haddii ay jiraan waxyaabo dadku tabanayaan sidii loo dhexdhigi lahaa ummadda Soomaalida laakiin qof isagu yiraaha aniga kaliday dadka waqooyi la yiraaho masila taasi waa doqonnimo Idris